intaan ka badan looma dulqaadan karo mana ahan wax la dhageysan kara dhawaqa naga soo gaaray laascaanood haddaanu nahay shacabka gobolka Gado har iyo habeen waxaan la ooynaynaa la danqanaynaa shacabka laascaanood laakiin waxaan idin leenahay ooyimayne waan u aaraynaa shacabkaas cid kasta oo mataqaanaa cadow ah oo ku soo duushayna way ka shalayn doontaa insha Allah mana ahan wax la sagaari doono dhiigga shacabka laascaanood uga xasuuqay insha Allah reer laascaanood waxaan u rajaynaynaa guul garabkiina ayaan taaganaa har iyo habeen hasaxanina soo baxa taagnaada habeenkii soo baxa maalinkii soo baxa gurihiina waardiyeysta difaacda dalkiina u taagnaada ilaa naftii qofkiina ugu dambeeya uu ka dhimanayo insha Allah waadna guuleysanaysaan awalan aniga oo ku hadlay guud ahaan magaca shacabka Jubbaland maadaama Jubbaland maanta matalaad kale ay lahayn oo annaga aanan ahayn waxaan halkan uga tacsiyeynayaa gaar ahaan anoo ku tacsiyeynaya magaca shacabka gobolka Gado dadka laascaanood ee masaakiinta ah ee xasuuqa baan loo geystay ee muddada toddobaadka ah dhibaatada ku jiro ee suuqaqoodii iyo ganacsigoodiina uu xirmay har iyo habeen xabadda ay ku socoto albaabadana guryaha loo taagan yahay isla markaasna la mid noqday shacabkii reer Falastiin ee lagu leynayay Jerusalem maanta kama duwano shacabka reer Falastiin ay yahuudu ay xasuuqayso dadka reer laascaanood waxay ku taallaa gobol taariikhi ah gobolka Sool waa xudunta halganka waxaa ku taalla Taleex oo ah xaruntii daraawiishta halkii sayid maxamed cabdulle xasan uu kala diriray ingiriiska iyo guumeystii dalkeenna halkii laga bilaabay in Soomaaliya gobonnimo ay hesho in maanta xorriyadda aan ku naaloonayna aan helno waxay ahayd Taleex gobolka Sool maanta laascaanood oo ah caasimadii gobolka Sool in lagu xasuuqo shacabkii gobonnimada Soomaaliya dhaqaajiyay Soomaaliya maanta waxa ay ku riyoon mataqaanaa farxadda ay haysato iyo jawiga ay ku jirto dadka soo gaarsiiyay maanta in dhibkaas ay ku jiraan waxay gunnimo u tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waayo waxa lagu soo weeraray waa guryahooda qof kasto halkaas ku dhintayna waa shahiid kama soo bilaaban dhibkan Hadraawi wuxuu ka soo bilowday dhibkaani dad ka horeeyay Hadraawi oo haldoor ahaa oo culimo lahaa oo waxgarad lahaa oo dhalinyaro lahaa oo nooc kasta isugu jiray dadkaasi oo midba maalin la dilay qof la dilay oo qof loo soo qabtayna lama hayo waxa sidaas samaynayo mas'uuliyaddeeda koowaad waxa iska leh oo eedaas qaadanaya Muuse Biixi wuxuu u garab taagannahay halganka xorriyad doonka ah ee shacabka reer laascaanood ay isaga dulqaadayaan guumeystaha dhibka u geystay isla markaasna maanta ku dhibaataynaya guryahoodii kama duwano ajnabi soo weeraray oo laayay ninka Soomaali ah ee nin kale ee Soomaali ah gurigiisa intuu ugu yimaado ku dhex dilo isla markaasna gabdhihii iyo ilmihii ugu oohinsiiyo halkaas ku agoonteeyo asayna ugu saaray hooyooyin badan kama duwano guumeystii ingiriiska ee halkaas ku soo duulay isla markaasna looga dilay Koofil waxa dilay waxay ahayn daraawiishta maanta lagu dhibaataynaya laascaanood Koofil wuxuu ahaa askari ingiriiska ahaa ee ingiriiska guumeystiisa mataqaanaa u ahaa wakiilka isla markaasna sayidka kula diriray Taleex iyo xarunta daraawiishta iyo gobolka Sool isla markaasna lagu dilay halkaas waxaad ogtihiin dadkan dad baqa ma aha waxay leeyihiin garab annagu reegada haddaana waa diyaar garownay waxaan diyaarinay 3500 oo ciidan ah kuwaasoo ah volunteers mutadawiciin qof ka soo reegada uu isdiiwaan galiyay 3500 ay tirada maraysa hadda dadka isdiiwaan galiyay ee diyaar ku ah inay xoreeyaan Sool laascaanood mana aha waxay u xoreynayaan qabiil
waxay u xoreynayaan waa qadiyad Soomaaliyeed waxay u xoreynayaan waa dulmi lagu hayo dadkaas darteed reer Gado waad ogtihiin in ay u babac dhigeen cadow fara badan waad ogtihiin in Axmed Madoobe iyo maamulkiisa aan halka ka saarnay waad ogtihiin in dawladda Kenya aan u babac dhignay waad ogtihiin in shabaab hal degmo uusan naga haysan waxaan rabnaa hadda laba goobood inaan xoreyno Bu'aale iyo Laascaanood Puntland noolama hormarayso waxaan u sheegaynaa maamulka Puntland halkiina jooga ha dhaqaaqina annagaa soo dhaqaaqayno ciidanka naga annaga xuquuqayso ee Falastiin iyo dadka reer Laascaanood waxba kuma kala duwana xasuuqa Laascaanood ka socdo wuxuu la mid yahay ka dhacay Rwanda oo kale genocide-ka xasuuqi ka dhacay 94 Rwanda ee 1 milyan oo qof lagu dilay kama duwana reer Laascaanood waxaan leenahay gobonnimo waxa lagu helaa dhiigiino daadisaan ha cabsanina dirira xaq ayaad ku taagan tihiin qof kastoo idinka dhinta waa shahiid jannada ayuu hore ka galaya qof kastoo daalim in ku soo duulay oo dishaana waa ahlu naar sababtoo ah guriyihiina ayuu inkugu yimid waxaad difaacaysaan waa cirdigiinni sharaftiinni karaamadiinni iyo dhulkiinni hooyo waxa la inku haysta maanta waa gobonnimadiinni waxa la inku haysto intaan ka badan looma dul qaadan karo mana ahan wax la dhageysan kara dhawaqa naga soo gaaray Laascaanood haddaanu nahay shacabka gobolka Gado har iyo habeen waxaan la ooynaynaa la danqanaynaa shacabka Laascaanood laakiin waxaan idin leenahay ooyimayne waan u aaraynaa shacabkaas cid kasta oo mataqaanaa cadow ah oo ku soo duushayna way ka shalayn doontaa insha Allah mana ahan wax la sagaari doono dhiigga shacabka Laascaanood lagu xasuuqay insha Allah reer Laascaanood waxaan u rajaynaynaa guul garabkiina ayaan taaganaa har iyo habeen hasaanina soo baxa taagnaada habeenkii soo baxa maalinkii soo baxa gurihiina waardiyeysta difaacda dalkiina u taagnaada ilaa naftii qofkiina ugu dambeeya uu ka dhimanayo insha Allah waadna guuleysanaysaan